reer Thamuud waxay caabudi jireen sanamyo iyo tamaasiil ay samaysteen sidii qoomkii Nabi Nuux iyo qoomkii Caad. waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala u soo diray nin iyaga kamid ah waana adoonkii Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa Saalix alayhi salaam. waana nabiga aynu doonayno inaynu caawa ka waranno qisadiisa. Nabi Saalix alayhi salaam waxa uu ugu yeeray inay Ilaahay keligii caabudaan oo aanay cid kale la wadaajin, sidoo kalena ay isaga tagaan sanamyada iyo tamaasiisha ay caabudayaan. koox yar oo kamid ahayd ayaa rumaysay Nabi Saalix alayhi salaam, intii badnaydna waa ay diideen oo ka jeesteen kuna gaaloobeen diinta Islaamka. gaaladii reer Thamuud waxay kula dagaalameen nabigii Allah subhanahu wa ta'ala iyo intii rumaysayba af iyo adin, waxna ulama yahaadeen oo waxay isku dayeen xitaa inay khaarijiyaan nabigii Allah subhanahu wa ta'ala. sidoo kale waxa ay dileen hashi uu Allah subhanahu wa ta'ala uga dhigay xujacad oo aan la tifiri karin. Allah awoodda leh ayaa ciqaab iyo dharbaaxo kulul ku dhuftay kadib markii ay xadgudbeen oo ay kibreen. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu qisadooda inooga waramay meelo badan oo Quraanka kamid ah. waxa uu Eebbe subhanahu wa ta'ala ku yiri Quraankiisa, waxaan u dirnay Thamuud walaalkooda Nabi Saalix, waxa uuna ku yidhi qoomkayow caabuda Allah subhanahu wa ta'ala, wixii ka soo harana idima sugne. waxa idinkaga timid xagga Eebbe subhanahu wa ta'ala xujacad, tanina waa hashii Eebbe, waxayna idin tahay calaamad ee iska daaya oo ha ka cunto dhulka Eebbe subhanahu wa ta'ala, hana taabsiinina xumaan oo markaas cadaab idin qabto. xusuusta marka Allah subhanahu wa ta'ala idinka yeelay kuwa bedelay Caad, kadibna idin dejiyay dhulka idinkoo ka yeelay dooxaheeda daaro, kana qoranaysaan buuraheeda guryo. xusuusta nimcooyinka ugu waaweyn ee Allah subhanahu wa ta'ala idinkugu galladay, hana u horseedina dhulkan fasahaad. madaxdii iskibrisay ee qoomkiisa kamid ahaa waxay ku yiraahdeen kuwii rumeeyay Nabi Saalix alayhi salaam, ma waxaad ogtihiin in Saalix laga soo diray xagga Eebbe? intaa kadib waxay dileen hashi, waxayna ka madax adeegeen amarkii Eebbahood. waxayna dhaheen Saalixow, noo keen waxaad noogu goondinayso haddii aad tahay mid la soo diray. Nabi Saalix alayhi salaam waxa uu ku yiri waxaad sugtaanba waa 3 cisho. manaysan rumayn balantii Nabi Saalix alayhi salaam uu ka qaaday, bale waxay isku dayeen inay isagaba dilaan. waxayna ku dhaarteen inay ka takhalusayaan Nabi Saalix iyo ehelkiisaba, kadibna dilkiisa ay dafirayaan. qorshe la yaab leh ayay sameeyeen iyo dhagar aad u weyn, laakiin dhagartoodii baa la go'day. markii ay damceen inay dilaan ayaa Eebbe subhanahu wa ta'ala u soo diray dhagax weyn oo burburiyay intii damacday dilkii rasuulkii Allah subhanahu wa ta'ala. waxaana isla goobtaas ku dhintay 9kii dhagar qabe ee ka dambeeyay dilkii hasha iyo isku daygii fashilmay ee lagu doonayay in lagu qaarijiyo Nabi Saalix alayhi salaam. reer Thamuud waxa asiibay wixii looga digayay. maalintii koowaad wajiyadoodii waxay noqdeen midabka huruuda, maalintii labaadna wajiyadoodii waxay noqdeen midabka casaanta, maalinkii saddexaadna wajiyadoodii waxay noqdeen madowga. maalintii afraad markii ay qoraxda soo baxday ayaa waxaa cirka kaga yimid qaylo, dhulkiina waa uu gariiray. waxaa asiibay cadaab aad u daran oo kaga yimaaday xagga Eebbe subhanahu wa ta'ala. waxaa magaaladii ku soo hadhay meedkoodii oo kaliya. Nabi Saalix alayhi salaam iyo intii rumaysnaydna Ilaahay baa ka badbaadiyay oo kor yeelay. Eebbe subhanahu wa ta'ala waxa uu Quraankiisa ku leeyahay reer Thamuud waa ay gaaloobeen oo weliba gaalnimadii ayaa la fogaatay. cidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa adeeci weysana waxa u dambeyn doonta silac, balanbal, halaag iyo cirib xumo. Ilaahay baan ka magan galaynaa cadhadiisa iyo ciqaabkiisa.